mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dalka Sweden ku dhaqan ayaa halkaasi ku qabsaday shir sanadeedkii ay beeshu ay yeelan jirtay iyadoo sanadkan shirka looga hadlay arrimo ku aadan sidii beesha ay u heli lahayd xuquuqaad ay sheegeen inay kaga maqan yihiin maamulada iyo dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya. Wariyayna Ibrahim ayaa warkan mar kale inooga soo diray dalkaasi Sweden. kulan ay isugu yimaadeen aqoon-yahano waxgarad qaybaha kala duwan oo qurba joogta beesha Jareerweyne ayaa lagu qabtay magaalada Gothenburg xarunta labaad ee wadanka Sweden. kulankan ayaa ahaa mid lagaga hadlayay xaaladda beesha Jareerweyne iyo waliba siyaasadda Soomaaliya ee waqtigan. waxaana kulanka lagaga dooday sidii loo mideyn lahaa dadka ku abtirsada beeshaasi looguna raadin lahaa xuquuqda dhaqan-dhaqaale deegaan iyo waliba siyaasadda ee kaga maqan beelaha Soomaaliyeed. inta shirkan uu socday ayaa waxaa lagu xusay in ay waqtigan diyaar u yihiin beesha Jareerweyne inay Soomaaliya ka saaraan habka dulmiga ku dhisan ee loo yaqaano 4.5. haddaba shirkaasi waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo fariin hordhac u ah isla markaasina ku wajahan dawladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed iyo waliba beesha caalamka. waxaan UN-ka iyo beesha caalamka ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sameeyo tirakoob guud oo beelbeel ah, in fiiro gaar ah ay u yeeshaan waxna ay ka qabtaan cadaalad darada na lagu hayo haddaan nahay qowmiyadda Jareerweyne. sidoo kale waxaan dawladda Soomaaliyeed uga baaqaynaa in si cadaalad ku dhisan loo siiyo qaybta awood maamul ee aan ku leenahay gobolada deegaanada aan ka soo jeedno. in tixgelin iyo qadarin la siiyo salaadiinteena, malaqyadeena iyo ugaasyadeena. waxa kale oo dariska ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca qurba joogta beesha Jareerweyne waa ku dan oo anigay dan ii tahay oo gadigeenba dan ay noo wada tahay ee joojiya falalka dhalinaya xasilooni darada joogtada ee aan dhamaad ka lahayn. haddaba intii shirkaas soo socday waxaa iyaguna telefishinka Kalson TV la hadlay qaar ka mid ah aqoon-yahaninta iyagoo ka soo qayb galay kulankan oo isla markaasina cabray dareenkooda iyo waliba sida ay ugu faraxsan yihiin in oo shirkan uu qabsoomo. ka mid ah beelaha Soomaaliya waxa loo aas-aasay ama uu ahaa aas-aaskiisa in beesha dulmiga lagu hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo sunnada nabiga iyadoo la kaashanayo in looga dhidhiyo hadday ayaga dulmi geystaanna laga celiyo sidoo ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam udar akhaak dulman oo madluuman. ujeedada shirka iyo muhiimadiisa intaas ay ahayd. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Shariifo Nuuraani Iftiin. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay oo xamaasad aan la soo koobi karin aan halkan la taaganahay in ay israaceen qowmiyadda Jareerweyne ayagoo isku raacay dal iyo dibad meel allaali meesha ku sugan yihiin ayagoo aaminay isku xirmay isku duubmay dadnimadooda inay jirta dad jira inay yihiin dad walaalo ah oo Soomaalidaas kale la mid ah yihiin cadeystay qirtay u istaagay dadnimadooda. marka waxaan idin leenahay waxyaabaha raadiga ah fikradaha guracan ama fikradaha qaldan ee aad isku sheegaysaan inaad tihiin dadka power weyn ilaaha power leh cid kale oo power leh ma laha. anaga ma ku dagaalamayno qori, waxaan ku dagaalamaynaa maskaxdayna iyo caqligayna iyo cilmigayga ayaan ku dagaalamaynaa. baaqas aan u dirayna haddaan nahay ururka Jareerweyne inaan isku duubannahay wixii maanta kadib oo maanta aan hadlayna shir kulan aan ku qabanay Jareerweyne inuu midoobay oo mid aan nahay kii dibadda joogo kii dalka joogo. kulamadan ayaa noqon doona kulamo joogto ah oo beesha Jareerweyne ay ku raadinayso xuquuqda kaga maqan dalka Soomaaliya. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Kalson TV, Gothenburg.